السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muuqaalkeena waxaan ku baran doonaa sida loogu xidho social mediaha website-kaaga sida loogu soo xidho ama loogu soo link gareeyo Facebook page haddaad leedahay ama WhatsApp ama YouTube channel waxaad leedahay sida loogu soo link gareeyo ayaanu barananaa. marka koowaad waxaad timaadaa website-kaaga markuusan ku yahay waxaad timaadaa meesha ay ku qoran tahay layout oo xaggan hoose xagga dhexe ah meesha waxaan tagaynaa meesha ugu hooseysa ee website-keena. markaad hoos soo degto meeshan ay ku qoran tahay follow us ayaad imanaysaa. follow us markaad ku dhufato waa kuwana social media xaggan ayay yaalaan. marka kuwaynu u baahnay waan iska delete gareynaynaa, kuwaynu u baahanahay waan deysanaynaa. nimka tusaale Twitter oo kale waan iska saaranaa, YouTube-ka iska daa, Instagram oo kale hadda waan ku deysan karnaa, waan iska saari karnaa. haddii Instagram aad leedahayna waan ku tusaysaa looga soo qaado. waxaa xagga hoose ku qoran iyadana waan iska delete gareynaynaa. YouTube and Facebook waxaan kaloo ku soo daranaa. Telegram aynu ku darsananaa intaan add new nira aynu Telegram baan ku qorananaa. meeshaas saahayno ahaato sayfan oranay. haddaba linkiyadii ayaan ku soo guranayaa. Facebook linki si aan ugu soo gashado waxaa khasab inaan Facebook-ayga tago ama Facebook page-ga aan tago oo linkiga soo qaato. haddaan Facebook hadda tago mid aan tusaale ku bixinayo weeye. markaas aan soo gasho waxaan waa mid aynu linkiyada ayaan ku gelin doono laakiin kayga officialka ama aha meeshaas ku dhufo saddexda ilig kabacdi waxaad ku dhulfataa meesha ay kugu meeshaas sare ee see your profile ku dhufo. kabacdi waxaad ku dhufataa saddexdan ilig ee meeshaas saaran. kabacdi waa kana linkiga halka inoo yaala, linkigii Facebook-geena hadduu page yahay iyo haddii kalaba halkaasaad ka helaysaa. page-kaagana page-ka intaad dul tagto ay saddexda dhibcood kusoo dhufanaysaa. copy link ayaan ku dhufanayaa. linkigi waa la ii koobiyey waan ka soo noqonayaa. kadib meesha Facebook-ga qalinkeedaasa tagayaa. marka qalinkaas ku dhufto Facebook page-kayga halkan ayaan soo gashanayaa linkigiisii intaa ka masaxo. waana soo gashaday Facebook linkigayga hadda waan soo gashaday oo Facebook-ga hadda waa igu jiraa oo lagala soo xiriiri karayaa. safe baan ku dhufanayaa. YouTube-kana si aan ugu soo xidho xaggan ayaan u kacayaa. YouTube ayaan kusoo dhufanayaa. With a massive camera upgrade, the A17 Bionic chip, and an entirely new category of safety innovations. Introducing meeshaas sare ee YouTube-ka ka galaysid kadib waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay your channel. marka kusoo dhufato kadib saddexda ilig baad ku dhufanaysaa. saddexda ilig marka kusoo dhufato meesha ku qoran tahay share baad ku dhufan. kabacdi copy linkiga ku soo baxay ee ku soo booday ayaad ku dhufanaysaa. linkiga waan soo koobiyeystay. YouTube-kana waan soo gashanayaa. markaasi waxaa ku soo dhufanayaa qalinka kadibna intan ayaan iska masaxayaa dhammaanteed. kadibna waan xajinayaa bast ayaan ku soo oranayaa. kana waa la igu soo daray. Instagram haddaad leedahay waa waad soo qaadanaysaa iyadana. hadda Instagram-na waan iska saarayaa iyadana saas la mid ah waad soo qaadanaysaa. Telegram-ka ayaan soo gashanayaa oo ay diyaarsaysna. Telegram-kayga ayaa tagayaa. khasab maaha Google kuguma khasbayo inaad linkiyo badan aad soo geliso ama in aad linkiyo aad ku wada xidho, laakiin laba iyo hal waa isaga kuma jirto shuruudiisa waxa kuma qabsanayo. kadib waxaan imanayaa meeshan ay Telegram ku qoran tahay qalinkaas baan ku dhufanayaa. kabacdina meesha HTTPS baan masaxayaa saas oo yar xajinaya. kabacdina bast ayaan ku oranayaa. kadibna safe ayaan oranayaa. kadibna safe dhammaantood ayaan oranayaa. hadda waan tijaabinaynaa inay shaqeynayaan. haddaba dashboard-ka ayaan soo furo website-kaaga imow ama view-ga kusoo dhufo. hadda website-keena ayaan tijaabinaynaa bal inuu shaqeynayo. linkiyada ayaan soo gelinay. waa kuna social media tijaabika aad doonaysid inuu shaqeynayo ayaan kale. YouTube-ka hadda ku dhuftay si toos ah ayuu u shaqeynayaa. Telegram-kana isna haddaan tijaabino. Telegram-ka isagoo halkaas icon-kiisa ma muuqdo laakiin waa kaasa. haddaan Telegram-ka sii dhulfto waa inuu geeyaa color on-oil-kii waa inuu geeyaa kanaalkaygii marka si toos ah ayuu ku geynayaa. mar haddaynu ku xidhnay linkiyadii waxaa yar ee soo hadhay maadaama oo baryahan maadaama ay fiidiyoyadu nagu yar dheeraadeen waxaan doonayaa inaan soo yarayno. website-kan waxaan ka saaranaa xaysiisyada yaryar iyo waxa ku dhex jira ayaan ka saaranaa maadaama meel dhow aan teamka bedelay
waxoogaa yar isbedel ayaa weli ku jira inkastoo hore uga saaray ood garanaysid si yar xawaara ayaan dul mari doonaa insha allah. Okay, halkan markaad timaadid dashboardka website-kaaga layout ku soo dhufo. Layout marka ku soo dhufato halkan aad timaadid waxaad timaadaa dhinacan usoo wada jiid xagga hoose markaad joogto dhinaca wada jiid kadib kor soo jiid popular postiga iska daa kaasna iska daa halka ay ku qoran tahay meelaha ariska kuwaasaad iska xidhaysaa hadhow adiga adsesiga lagu siiyaa soo gashan doontaa. hadda qalinkeeda ayaa ku dhufanaya taasoo kaleeto kadibna xaggaa sare ayaan iska xidhayaa. Okay, markaan iska xidho markaan iska xidho waxaa kale oo aan iska xidhayaa iyagana wixii kale ee arisa ee igu furan ka hadda waan iska xidhay. halkan labelska ayaa iska daysanaysaa kuwa kale waa iska xidhaysaa wixii kale kugu jira dhammaantood waa iska xidhaysaa. Okay, wixii kale ee sida ariskoo kale about me-da iska daa main tagskaasoo kale isagana iska xidh. Okay, meelahan waad iska xidhaysaa wixii aadan u baahnayn tusaale tan oo kale waa xayeysiis isagana hadda waan iska xidhayaa waxayeysiisada xaggaa sare wax ka muuqda. Okay, kaana safe ku dhufanayaa sidoo kale waxaan iska xidhayaa popular postigaasi waxa weeye kuwa ku jira markaad ku dhufato postiyadaada waa kuwan weeye kuwan ayaan iyagana iska qaadanaa kuwan saa iskaga qaadno iyagana waa kuwan ku qoran tahay meeshan ku qoran popular post ku qoran tahay iyana xagga hoose noo taalo ma baahnin waa iska xidhanaa iyadana socon. Okay, markaas iska xidhno kuwan oo kale iyagana iska xidh hadda hadhow ayaad furi doontaa waxa aris ku jira oo dhan dhammaantood iska xidh waxa javascript oo dhan oo iska xidh xaggan soo kac post aris 1 isagana iska xidh hadhow baynu gadaal ka soo gashan doonaa wixii uu nasiyo google-ku. Okay, inaan ka wada xidhnay rajaynaya website-keena ayaan ku noqonanaa hal mar ayaan refresh odhananaa markaasi inay xayeysiina wada baxaan baan rajaynaynaa. Okay, ka u sareeya weli ma bixin kaasaan iska saaranaa meeshan ay ku qortay tags soon isagana waan iska saaranaa waxaasoo dhan iyagana waan ka saaranaa. Okay, saan uga saarno kusoo noqo meeshaadi hore. Okay, kan isagana header aris ku qoran tahay waa ariska xagga sare kasoo muuqda isna soo kale waa iska xidhanaa qalinkiisa soo taabo kadibna iska xidh kadibna save dhe. Okay, qaybtan ay ku qoran tahay blog post ayaad imanaysaa kadib qalinkeeda ayaad ku dhufanaysaa kabacdi hoos ayaad usoo hordegaysaa kadib waxaad iska xidhaa meesha tagisku waa halkana kan iska xidh kanna soon iska xidh haddaad u baahnayn haddaad baahanta iska dii kartaa kanna waa iska xidhay dhammaantood markaan iska xidhaan safe idhaahdo waa inay ka baxaan kuwani waa inay meesha ka baxaan waxa meesha ku qoran waa inay ka baxaan kuwan iyo waa inay ka baxaan wixii kale shareki iyo tii shareka ahayd waa inay ka baxaan kuwaas dhammaantood. Okay, hadda refresh waan odhanayaa ma waa soo jiidayaa. Okay, hadda waa ay ka baxeen waa nadiif about me-gana waad iska saari kartaa waxa gurasata ku qoran. Okay, hadda website-kan hadda waa nadiif wax ku jira haba yaraatee ma jirto. Okay, insha Allah khayr ayaan rajaynaynaa.